وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا waxaan rabaa maanta inaan kuu sheego saddex faa'iido oo markaa tahay qof ilaah subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay baari qof baari u ah waalidkiisa saddex faa'iido oo uu helayo uuna ku liibaanayo akhri adduunba ilaah subxaanahu wa tacaala awalan wuu ammaanay ilaahay jalla sha'nuhu markuu cibaadadiisa ka sheekeeyey iyo in isaga marka hore la caabudo waxa labaad uu soo raaciyey waxa weeyaan waa labada waalid adiga ku dhalay وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أولا نارت أفك أورن أو وحي كرحسنا هديهن هنا قول وقل لهما قولا كريما وح ونكسنو ده قول ونكسنو ده أراه ونكسنو ده معاملة ونكسنه كل معاملتم قفك يعني بارقة كو ومستجاب الدعوة إلهي دعيس وأقبلها هذا مرجع عند كروقات وترى يا الله إلهي وحى إسي أما أمد هذا دعيسه أما اسكت دعيسه إلهي وكا أقبلها وحنا الدليل ما أردت حديثك ما أردت أويس القرني نينك السجا وحكى لكم موسى قارين نبي عليه الصلاة والسلام وحيدين من دون أويس القرني وأسجع عمر بن الخطاب نقول لك الله يدعي النبي كم مقلية وحكى لكم موسى قارين هو يدي ببار وأها هذا والد كذا بار ونقطه مستجاب دعوة نقنيسا وكذلك قفك يعني بار رجاءه waxa weeyaan qofkaasi waxa uu leeyahay ajir qofka mujaahidka ah isla markaana xaajiga ah mu'tamarka ana ajirkooda uu helaya wakadalika qofka ma aragtay baariga ah ilaah subhanahu wa ta'ala qofka asaga ah dhunubtiisu dhaafaya ilaahay baana raali ka noqonaya waalidkada haday raali ka noqdaan ilaahay baa raali ka noqonaya hadii aad doonayso saddexda arimood inaad hesho noqo qof baari u ah waalidkiisa hadday dhinteena u ducee suu ilaah subhanahu wa ta'ala darajaadka jannada uu ilaahay ugu ziyaadiyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu uga dhigo maca suhbati nabiyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wala al-walid bari an-naqo ilaah subhanahu wa ta'ala hu arzaqa awlad bari adigane barakallahu fiik assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh